gudoomiyaha beelaha Irir Soomaale Professor Cabdiraxmaan Axmed Xasan Shuruf oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin xaaladaha xilligan ka aloosan gobolka Sool magaalada madaxdiisa Laascaanood ayaabaha ay ka wada hadleen saraakiishii ka socday dalka Itoobiya ee garaadada beelaha dhulbahanto ugu yeeray magaalada Garowe iyadoo magaalada Laascaanood laga qaaday diyaarad waxa kale uu iftiimiyay dhawaa ka soo yeeray boqor Buurmado shirka beelaha direed oo ka qabsoomi doona gudaha Soomaaliland maxaa sababay arrimahaas iyo arrimo kale waaweyn waalaikum waraxmatullaahi wabarakaatu kan aan idin sheego waxay ka dhigan yihiin 21kan jiidu waxay ka dhigan yihiin 21kii Oktoobar 1969 markii Maxamed Siyaad Barre qabsaday wadanka ee kacaanku ka bilaabmay oo waxa weeyaan oo kale 21 wuxuu ka dhigay 21kii nin uu sareeyay kacaanka berigaasi ee golaha sare waana bishii Oktoobar 21keedii 69kii halkaas uu ayuu dabada ku wataan 21 ninno waxa weeyaan daaroodiisan baanay wadeen imakana wadaan waxa markaa aan doonayaa inaan idin sheego ninkii Cabdiqays baa berigii wuxuu tiriyay hees 1969kii isagoo moodeen xaaladda si arkayba moogtay markaa wuxuu yidhi isagoo la hadlay dhulbaantaan nimanka situation ku yahay oo kale shib baa igu haboonay dibna oo shakaale wuxuu sharafkayga lumay aqli jiray 15 markii aan la shooray marka waxa uu ka hadlaya waxa weeyaan isagoo wadan ay dhulbahanto haystaan ay leeyihiin oo Soomaaliland la yiraahdo oo awooyaashoodii shanaad iyo kii lixaad iyo kii toddobaad baa ku dhasheen ay yiraahdaan waxaanu nahay kama mid nahay Soomaaliland waxaanu ka mid nahay qolo daarood oo la yiraahdo Puntland markaasuu sharafka ka lumay wixiina maanta wadinka arko dagaalkii ay soo qaadeen ilaa al-shabaab ilaa iyo 21kan 21kan ay G21ku ay wadeen ilaa iyo meel walo la iska habar wacdayba dagaalku waxa la yaalo wax tarin ma jiro guulo uu soo hooyay iyo dad badan oo isku xiray oo aan markii hore Soomaaliland taageersaneen oo ay kamid tahay marka Itoobiya iyo Mareykankuba waxa markaa cad weyn baa ku dhacday nimankii daarood arrintan waxay noqonaysaa sidii berigii hore baynu sheegnay sanadkii la oran jiray daarood jab gudoomiyaha Irir Soomaale ee Somaliland Professor Cabdiraxmaan Axmed Xasan Shuruf oo xilligan isagu ku sugan caasimadda Somaliland ee Hargeysa marka waxa sheegtay in 21kaasi la mid yihiin wixii ka caanka Oktoobar waxa gudoomiyaha ka hadal leeyahay ninka la oran jiray madaxweynaha hore Soomaaliya Farmaajo sababay in halka magacaasa sheegtay laga keenay ama laga soo dhigay waxa uu Farmaajo ismoolahayn horta uu dhacaya wuxuu isla wadanka wadaysanaysa isagoo markaas ku haleynay lacag far badan oo adduunka ka helay oo argagixisada lagu la dagaalamayay ayaa wuxuu u qaatay inaan weligii dhacayn marka marna muu soo dhiganba wadci doonta waxaan markaa dagaalkan ay bilaabeen daaroodiism kuwa dagaal bir hore oo Farmaajo ka shaqeeyay waa 10kii kuna inaan la direesan berigii hore sheegnay ee la geeyay maxay tahay Eritrea lagu soo tababaray waa kuwii gadar la geeyay waa kuwii meelahaas oo dhan lagu soo tababaray ayaa la doonayay in Soomaaliland lagu baabiyo marka marna soomu dhigan waa laga badinayaa Farmaajo wuxuu leeyahay oo nidaan ogeyn banka weyn ee la yiraahdo Premier Bank oo imika isagoo isla bank kale oo Kenya ku yaala isla ku darso oo iibsadayba ayaa loo ogaaday inuu isagu leeyahay Premier Bank oo la yaabo leeyahay waa lacagtii uu beriga helay fara badnayd ayuu doonayaa Farmaajo sidii meelo ugu diri lahaa kala kaana oo loo heli lahayn in raadkeeda ayuu iibsanay bankan dambe Kenya uu ka iibsanay oo ninay isxigaano uu ku qoran yahay magacan marka waa wax laga soo shaqeeyay ma aha wax ciyaar dadkeen waxa u haystaan wax ciyaar ma aha waa Premier Bank Somaliland ahba ayuu Farmaajo leeyahay sagaal Premier Bank Somaliland Puntland ku yaala Soomaaliya sagaal waa bankiisi adigu waxa tahay Professor gudoomiyaha beelaha Irir Soomaale ayaa colaadahan ka dhacay geyga Soomaalida ee xilliga durbaanada ka baxaysa ee colaadeed ma waxa sababay
beelaha irir Soomaali mise waxa sababay beelaha iyo garaadada ama ismada daarood mise madax dhaqameedka beelaha irir Soomaali waxa cadaan oo si cad u bilaabay waxa weeyaan waa daaroodku waxa weeyaan markii la eego taariikhda xitaa Soomaaliya oo inaan dadku aanay hore u eegi jirin waxa ay ahayd ninka waxa meesha intaan xulnimada aan helin waxa haysan jiray ninka la yiraahdo prime minister ka ahaa Cabdullaahi Ciise oo nin irir Soomaali ah oo waawiya ninkaasi labada nin ee la shaqayn jiray ma garanaysaa ورaaci jiray United Nationka waliba ninka ugu sii magac weyn waxa ninka loo jiray Michael Mariano raaci jiray mar walba ma garanaysaa meeluhu tagay oo dhan safarku tagay oo dhan ninka uu ahaa fayeenka wuxuu qori jiray walaalaha ayna isku xidhnaan nimankaas niman markaa irir Soomaali waxa isku xidhan markan dambe iyadoo aanay dadaal u sameeynin daaroodku oona kaba qayb gelin ma garanaysaa xulmadoonkii Soomaaliya ayaa nimankan majeerteelay ku soo duuleen meesha marka ilaa intaas oo qaska socday Soomaaliya baabi'iyay muu ahayn mid ka yimid irir Soomaali waxa mid ka yimid majeerteeg gudoomiye waxa jirta in hadda ay halka yimaadeen saraakiil Itoobiya markii dambana ay garowa ugu yeedheen garaadada 31kii ka waday shirka Laascaanood inta ay ka wada hadleen ma ka war haysaa arinta ay ka wada hadleen garaadadu waxa ay soo bandhigi kari waayeen marka ay leeyihiin dawlad baan la dagaalamayna dadkii ay qabteen halka geeyeen kala qaadeen ilmatii dawlad laba dawladood oo islaayay wacid alyaala cid ay hayaan iyo cid ay qabteen midna ma jiro moogtay waxa markaa ku noqotay man iska hadlayo oo hadal uu ka keenay waxan oo aan dawladna la dagaalami karin Soomaalilandna gacan kaliya ku dagaalamayso waxa weeyaan wadankoodii meesha ciidamada reer Laascaanood waxay noqdeen markii sirdoonku u baaray waxay noqdeen nimanka argagixisada ahaa meel walba iskaga yimid cabdimudoobayaasha lahaa oo aan iyagu u yimid meeshan sidii ay u qabsan lahaayeen iyagaana kaga badan ciidamadan ay soo dhoobtay dhulbahantaha iyo tan ay keentay Puntland iyo USA ay keentay intaba iyaga kaga badan oo argagixis waa ciidan argagixis baana sheegeen Mareykankuna wuxuu ku raacay markii sirdoonkiisa isagoo baaray qadiyada Soomaaliland warkii ay sheegaysay lahayd waxa lagu soo duulay argagixisada lagu soo duushay tiiba run noqoto tiiba la isku raacay tiibana la horgeynay imka oo la doonayay lagu la hadlo dhulbaantaay maxaa ka jira wararka sheegaya in la yiri garaadada waxba gacanta ugu jiraan jirtaa in la garaadada sirdoon ku yiraahdeen waxba gacanta ugu jiraan bay warkaas uu jira waa loo deel cadeeyay inaanay iyagu aanay xukumin oo meeshan nimankan alqaacida iyo nimankan al-shabaabtu niman ka gabanaya ma warkooda mar walba waxay ku dacwiyaan iyagu inay meesha wadaan oo yihiin ciidamadan ka dagaalamaya oo niman diinta u dhimanaya iyagu qabiilna ma aaminsana mar walba iyaga garaadada ka agleeyihiin arrimaha caynkaas anaga ciidamadeedii nimankan maaha baad barra gacanta waxba uga jiraan nimanka dibadaha ka yimid huwanta la yiraahdo ay waliba afayeenkana u yihiin alqaacida iyo al-shabaab ayaa nimanka soo weeraray waxaan oo dhan waday waxaana markii ciidamada Soomaaliland ay ka qabteen meeshii ka eriyeenna waxaad ka garanaysaa shir taageeray ka dhacay burco ee dadku taageerayeen qadiyada Soomaaliland iyo sidii iskaga celiyeen nimanka argagixisada ay ku soo duulay iyo daaroodkii isuwana gudoomiye hadda waxa beelaha direed ay qabaqaabinayeen iyo qaar ay ka mid ah ay yimaadeen oo madax dhaqameedka beesha suroo kale inuu Hargeysa ku sugan bal ka waran ilaa hadda kulamada in socda beelaha direed iyo dhanka abaabulka xagay idinku waxay nimarayaan waxa weeyaan waxa imanka si wanaagsan bay u socdaan waxa aad arki doontaan maalin war saxaafad ka soo bixi doono bisha 12keeda marka shirka lagu qabto magaalada Boorame arrimahan laga hadlayo ee lagu doono suldaanka weyn ee boqorka weyn ee magaranaysa beesha waxay maqli doontaa dadkii isku xiran waxay maqli doontaan dadka ugu badan geeska Afrika inuu noqon doono irir Soomaali waxaad arki doontaa dad badan oo ilaa imaka xitaa barsuug qolada la yiraahdo degan Ethiopia ethnic group fara badan
iyaguna inay yidhaahdeen waxaan nahay qolo arab oo isaaq ah oo iyaguna imanayo shirka ka soo qaybgelaya dir badan oo hore loo arag oo iyaguna ka soo qaybgelaya waxaad arki doontaa dad mujtamac maxay tahay ay ka mid yihiin ciisaha gadabuursiga saaqa dirkii kale oo dhan hawiye wax walba halkaas ku wada manay waxaad ka dhawaajisay inaad shir ku qabanaysaan direed Boorama caasimada gobolka Awdal daaradku waxay leeyihiin waxaana mideysay haweeney Muuse Biix ma leedahay adigu arintan laascaanood ka dhacday ama arintan daaradku ka wadaan laascaanood waxay mideysay beelaha direed waxa weeyaan waa su'aal muhiim ah waxa laba filayn markii hore inay arrintan u dhacdo laakiin markii la arkay meel walba laga yeedhiyay in ay isku yeedheen daaroodku ilaa kuwii jiba joogay ilaa iyo kilka shanaad joogay ilaa iyo meel walba adduunka joogeenba ilaa Kenya joogeen ayaa dabatana la yiraahdo maxaan nahay taasa kixisa dadka dadweynaha nimanka isku imanayay waxa socdo dhami waa daaroodkan keenay colaada iyo cadaawada iyo dilka ilaa ku hadlaya kula naaga isaaq guusan halkay marayso colaada ay gaarsiiyeen inay dhaadaan dadkiis dhalay walaalaha ahaa marka daarood kale ayaa leedahay daaroodkii baa kule xitaa ma kala guursanayno marka colaadan saa xumaatay dadkii oo dhan ka wada cadhoodeen oo yar Soomaaliland ku dagaalamay hablaha isaaqilay guursan meena yaani colaad ahaan waxba isma geynaba arintaas dhaawac intee ku keenaysaa dhanka ay bulshada waxa weeyaan taan doonayna in maartay dadka loo iftiimiyo in arintan ay wadaan ay tahay arin isirgoysa arin isnacayba arin lagu kala tagayo arin doonayna in maartay colaad weyn ka dhacdo oo tii magarasa Rwanda oo kale ka dhacday magarasa marka inaga Ilaahay dadkii ka dhicmayso waa tan laga hortagayo waa tan dadka loo sheegayo waa tan la tusayo inay daaradku ka yar yihiinba magarasa isaaq iska daayo aanay gaareen habar jeclada la deegaanka la laasano adigu waxa tahay gudoomiyihii guud ee beelaha Soomaaliya boqor Buurmadow waraysi ku bixiyay magaalada Muqdisho oo eeda kullu jeediyay dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sidaad u aragtaan beesha Soomaaliya ahaan Buurmadow waxa uu leeyahay inaga khaldan Soomaaliya khaldan uu leeyahay waxa daarood ka saxsan isagoo marka hore Buurmadow wuxuu ilaa berigii hore wuxuu ku jiray daarood kula shaqaysan jiray oo nin wuxuu ahaa kamid ah waxyaabaha ku buruuf gareynaya inuu kamid ahna waxa weeyaan markuu ku leeyahay Hargeysa ayaa lagaga qaaday dhulkaygii iyo waxyaygii lagu qaaday markuu waxa ku hadlayo ogtahay Hargeysa in iska daa maxay hayto Soomaaliya ay Hindiya qala ku leedahay ya Carabi oo aan cidina u dhawaan dadka la soo dhaweeyo ma garanaysa beel walba lagu soo dhaweeyo sida wax u dhisan lahaayeen adkana ku tusisana Axmed Mooge sida magaalada u qurxiyay iyo wadooyinka ka socda iyo dhismayaasha ka socda iyo investmentka badan ee uu doonayay in meel walba la geliyo ayaa ku buruuf gareysay in wuxuu ku hadlayo Buurmadow ay been tahay aan jirin oo raad lahayn oo marka horeba uu doonayay inuu kala qaybiyo oo dira maxaad u jeedinaysaa boqor Buurmadow waxa uu sheegay in toban guri laga qaaday beesha habar jecel oo ay ka qaaday beesha madaxweyne Muuse Biix si toos ah arka daqo dhufta sida waxa weeyaan arinta maxaad gudoomiyado Soomaaliya hadalka uu midiyaha gudoomiye soo mariyay maxay tahay waxa weeyaan isagu Buurmadow had iyo jeer wuxuu isleeyahay ka dhig habar jecel beel yar oo aan ahayn beelaha waaweyn annaguna waxaanu aaminsanahay dadna Soomaaliya inay habar jecel tahay bay saaqal sheegaba inay iyadu tahay cid wax ka qaadi kartaa inay jirin Hargeysana iyagu leeyihiin hadalkiisa nin habar jecel ah Hargeysa gurigiisa lagu qaatay inaan garanay aqaladiisa ka buuxa magaalada Hargeysa oo isagu kireeyo oo imika lacagta loo diro taabshin loo dhigo yaa ku dhici kara qaadan karaa guriga ku leeyahay waxa fadan la yiraahdo meesha la yiraahdo 150 meesha la yiraahdo ayuu ku leeyahay guriyo badan koode oo uu kireeya oo iskuul kaga jiraan oo isagu gala markuu doono oo waa guest houses ba ku jira xitaa marka ayaa taaban kara waa iska hadleen markaay ila buurmadow inuu arinta cadeeyo oo
banaanka keeno soo arrin loo baahan ma tahay buur madow way ka xumaatay waxa ka xumaaday halkii uu barayay iyo dadkii uu shaqeynayay oo dayma ka iyaga noqdayba dadan cid dhigeysanayeen moogtay qadiyadii uu waday daaroodismka uu la socdayna way baabaaday maanta daarood jab baa la maraya buur madow meel cidla ah baad gudaysaa waxaan kula indhaa kala fur waxa uu kala eedeeyay gudoomiyaasha xisbiga mucaaradka sida u ciido kale uu ku muqumad iyo waxa ka uu isagana eedeeyay markuu ciidanka hala taakuleeyo hala taageero muqumad helageeyo eedeynta ciidankii qaranka Soomaaliland uu gumado eedeeyay uu ku eedeeyay Faysal inuu ciidanka uu yiraahdo iyaan taageero ciidanka waxa eedeyntu soo jeediyay wuxuu kala garan waayay wuxuu mooday markii ay isayeen qolada mucaaradka iyo musabixi iyo magaranaysa xisbiyadeenu leenahay ayaa wuxuu moodayay in la kala tegayo moodayay ninkani oo dabatana oo ay xisbiyadan mucaaradka raaci doonaan daaroodka waxaanu garanaynin meeshan inuu cali waraabe wadanka leeyahay inay xisbigeena kale wadanka leeyahay in qadiyada la isku yaay tahay in siyaasadda xisbiyaduna kolba nin baa madaxweyne noqonaya berrito waxa laga yaabaa inuu noqdo in cali waraabe saa dambe uu noqdo Ciro waxa weeyaan iyo kii kale soo baxba marka ma aha qadiyad dhaafsan innaka tan laakiin uu ka hadlaya buur mad waxa waan tii kala guura oo daaroodism iyo waxa inaan garanay israac marka way ka qaldantay jihadi baa ka qaldantay wana laga adkaa siyaasadii waxa meesha ka tahayna ma jirto mar raan cadeysatay mabdaaga sidaas aan ku ognahay hadaan nahay inuu Soomaali adigoo ah gudoomiyihii guud ee beelaha kala duwan ee ku dhaqan geeska Afrika ee Irir Soomaali Cabdiraxmaan maxaad ugu baaqaysaa maanta beelaha Irir Soomaali waxa weeyaan bay noo soo baxay baan leeyahay beelaha Irir Soomaali waxay noo soo baxay inaynu walaalnimadii aan diideynay ilaa 60kii bay noo soo noqotay waxaynu leenahay waa in isgarab taagnaa beeraha Irir Soomaali waa in wada tashi la wada sameeyaa waa in la wada qabsadaa waa in investment la wada gashadaa waxaynu qabanaynaba nimanka daaroodna waa inaynu iska xijinaa oo aynaan u ogolaanin inay maanta wadankeena ay ka ridaan dagaal iyo waxaynaan u baahnay inagoo doonayna inaynu wax dhisano in dagaal layna geliyo ma waa mid ka wada noqon sheegtay in Soomaaliland lagu soo duulay oo magac beelas isticmaalaya dad xaraaqi ah dawladdiisa bare dad kooxaha argixisada kamid ah waxa sameeyay laascaano gaar isbaahaysi halkaas ay ku soo wada qaadeen idinka Irir Soomaali ahaan shirkada boorba ka wadaan arrimahaas oo dhan ma ku soo bandhigi doontaan haay waxa weeyaan waxaan doonaynaa in iyadoo cad meel looga soo wada jeesto in maartay la tuso daaroodku inay ku qaldanaayeen qabiilka dagaalka qabiilay ku baaqeen ay inta badan ka shaqeynayeen in waqtigii qabaa'ilku dhamaaday in Soomaaliland ay hore u socoto oo maanta dekedahoodii samaysmayso oo aad maanta arkayso batroolkii soo baxaya waxaad arkaysaa wadankii oo dhismayaal iyo wadooyin iyo waxba ka socdaan dib cid u noqon mayso horaa loo soconaya waxaan leenahay Irir Soomaali wuxuu noqday wixii isku keeni lahaa iska daa Soomaaliland iyo Horn of Africa dhan marka gudoomiyaha waxa ka tahay raggan imka hogaaminaya shirkan Irir Soomaali ee Boorame guud ahaanba siyaasadda beelaha Irir Soomaali xitaa xagga keelka oo iyaguna ay aad uga cabanayaan in saamiga kaga maqan yahay arrimaha shirka isaga ee dalka dawlad deegaanka ismaamulka Soomaalida maadaama cid walba halka digtada ma kaga hadli doontaan dhanka saamiga beelaha Irir Soomaali ka cabanayaan dawlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia hayo wixii beentii hore ee jirtay baa imaka ayaa baabaayso mogtay ee laha meesha bariga hore loo jiray ogaadeen baa degan yaamba daarood baa degan ma jirto waxa kaga badan Irir Soomaali kaga badan waana ku arki doontaan marka 12ka bishan marka la shiro oo iyadoo dadkii iyo boqoradii iyo ismadii iyo cuqaashii iyo waxba ka hadlayaan oo ay waxoodina doonayaan Ethiopia waxay ogoshahay in ethnic groups helaan qolo walba meesha ay joogtaa iyada xukunto oo maamulkooda sameeyay dhawaan waraysi aad bixisay waxaad sheegtay in ay Puntland ka dambayso dhamaana ilaa ay xisbida mucaaradka cid walba way sheegtay madaxweyne Dani waxa uu sheegay
إن لاسعانو دني مدام يجي لاسعانو بالله بكتير وين استوى سيدات واركت مدام تاي قدوميه إلى السماء دواقع قصيرة من هونها بالله waxay la mid tahay daaroodiisamkii aynu inta badan ka hadalay ayay taasina ka mid tahay waxa weeyaan wuxuu doonayaa majeerteenku mar walba inuu qas ka rido meel walba Soomaaliya joogtaba tan waa mid kale oo cadeynaysa inuu ninkaas ay majeerteenku doonayaan inaanay meeshaas cagaas ku taagin yaani Soomaaliya istaagin Soomaaliland aan cagaas ku taagin inuu baantiis iyo magaranaysa Soomaalilandna aan yeeshin marka waa waxba kaba jiraan weeyaan Somaliland iyo laascaanood waa mid waa walaalo